howlwadeennada caafimaadka ee ku sugan magaalada Baydhabo iyo meelo kale oo ka tirsan dalka ayaa waxa ay ka digayaan cadadka talaalka oo hoos u dhacaya iyo macluul ba'an oo gaar ahaan ku dhifata carruurta kadib markii uu Mareykanku goostay lacag badan oo uu siin jiray Soomaaliya sida imika lagu baahiyay Democracy Now! balse tii uu Mareykanku goostay deeqihii uu siin jiray dalka Soomaaliya waxa uu aad u labalaabay duqeymaha uu ka geysto dalka Soomaaliya oo imika 49 duqeymood gaaraya tan iyo markii uu Trump xilka la wareegay bishii Janaayo ee sanadkan sida lagu baahiyay New America. haddii aanu adeegsano xogta taliska Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaano Africom in ka badan kala bar weeraradaasi waxaa loo adeegsaday iyadoo lala kaashanayo baa la yiri dowladda federaalka Soomaaliya kooxda Daesh ee ku sugan gobolka waqooyi bari dhaca ee Puntland iyadoo inta soo hartayna la sheegay in lagu riday kooxda shabaabka balse maxay tahay sababta maamulka Trump ee la soo shirtagay halku dhaga Make America Great Again taasoo u fasirmaysa in Mareykanka uu yareynayo tacaburka uu ka wado dalalka dibadda uu mar kale u labalaabayo weerarada uu ku hayo Soomaaliya gaar ahaan xilli siyaasadda Mareykanka ee Soomaaliya lagu sheego mid muran dhalis ah isla markaana fashil iyo fadqalala ku dhamaata waayo tan iyo markii ay soo dhaceen labadii diiwaradood ee Black Hawk bishii October ee 1993 oo sidoo kale halka lagu dilay 18 askari oo Mareykan ah iyo kumanaan Soomaali ah Mareykanku waxa uu Soomaaliya ku tilmaamay meel lama galay ah ilkeeda aragtida waxa isbedeshay 12 September markaas oo Soomaaliya ka mid noqotay tiyaatarada muhiimka ah ee waxa lagu sheego la dagaalanka argagixisada kaasoo sida uu sheegay Abuukar Armaan oo la hadlay Al Jazeera uu ku macneeyay in Mareykanka uu ka leeyahay saddex ujeedo oo waaweyn oo kala ah inuu qiil dadkiisa uga helayo inuu Soomaaliya ka geysto duqeymo halis ah inay Mareykanka ka caawinayso ilaalinta danaha siyaasad dhuleed ee uu ka leeyahay geeska Afrika inta saddexaad oo ah inuu heli karo dhigmeerad dhaqaale isagoo raacaya aragtida raas Soomaaliga ah ee fursad gaadka ah sanadii 2007 Soomaaliya waxay noqotay wadankii ugu horeeyay ee ku yaala qaaradda Afrika ee dibana u noqda duqeyn dhinaca cirka ah oo salka ku haysa wixii dhacay 12 September waxaana sidoo kale Soomaaliya lagu fasaxay Ethiopia oo dib weyn ka geysatay gudaha Soomaaliya xilliga wixii ka dambeeyayna duqeymaha Mareykanka ee cirku joogto ma ahayn oo qura balse way sii xoogaysanayeen marba marka dambaysa tusaale 16 sanadood ay xilka madaxweynaha hayeen madaxweynayaasha George W Bush iyo Barack Obama waxay Soomaaliya ka geysteen 50 duqeymood halka madaxweynaadkii koowaad ee Donald Trump ay arrintu aad cirka iskugu sii sharartay oo ay gaartay 219 duqeyneed sida uu qoray New America haatan oo uu Trump joogo waxaan ka badnayn 5 biloodna waxa uu dulba dalka Soomaaliya ka geystay ilaa 49 duqeymood halka Joe Biden 4 sanadood ee uu xilka joogay uu geystay 50 duqeymood oo qura Jethro Norman oo cilmi baarka ah macadka daraasaadka caalamiga ah ee Danish Institute for International Studies ayaa sheegay in Trump uu dalka Soomaaliya u adeegsanayo sida dooliga dawooyinka lagu tijaabiyo waxa loo yaqaano guinea pigs isagoo ka faa'iideysanaya awood xad dhaaf ah oo halka ku adeegsan karo xisaabtanka oo aad u yar iyo wax awaaqib ah oo siyaasadeed oo maxalliyan soo gaari kara oo aan jirin balse Norman waxa uu sidoo kale hoosta ka xariiqay in imika aqalka cad ay ka socoto dood ka dhalatay duqeymaha ka socda dalka Soomaaliya waayo laba dhinac oo Trump wada taageersan ayaa waxa isku haystaan in la joojiyo duqeymaha Soomaaliya iyo Yemen oo ay ku sheegeen kuwa ka jeedinaya inay la xafiiltamaan xuduudda dalalkan ka weyn ee China horaantii sanadkan markabka diyaaradaha xambaara ee USS Harry S Truman iyo maraakiibta kale ee isaga weheliya ee loo yaqaano Strike Group ayaa waxay sheegeen inay Soomaaliya ka geysteen duqeyn cireed midii ugu ballaarnayd taariikhda adduunka marka ay timaado weerarada laga soo qaado markab diyaaradaha xambaara dushiisa bishii Febraayo ee horaantii sanadkan sida uu ku faanay Admiral James Kilby oo xilliga ku sama u ahaa madaxa howlgallada ciidanka badda ee dalkaasi Mareykanka mar uu la hadlayay golaha xiriirka caalamiga ah ee loo yaqaano Council on Foreign Relations waxaana duqeymahaas ka qayb qaatay 16 diyaaradood oo ah nooca FA-18 Super Hornets oo ka soo duulay markabka Harry S Truman waxaana sida sarkaal ka tirsan ciidanka badda Mareykanka oo magaciisa qariyay balse uu warramay warqaadka The Intercept Soomaaliya lagu ganay bambooyin ay canaabtoodu dhan tahay 125,000 oo rodol kaaga daran 60 kaatan ee bambooyinka ah waxaa lagu dilay 14 qof oo qura sida uu sheegay taliska Africa Command ama Africom ugu dambeyntiina waxaasoo dhammi waxay muujinayaan in Mareykanku aanu meesha ku haynin wax qorshe ah oo Soomaaliya anfacaya ama xitaa aanu doonaynin in si quman looga takhaluso dhibaatooyinka ammaan ee dalka ka jira sida dhibaatooyinka ay wadaan kooxahan xaq jirka ah balse ujeedkiisa koowaad uu yahay boos cishi istiraatiiji ah cudud muujin uu dalal kale ugu tirisayo iyo ugu dambeyntii layli toog barasho ah oo aanay cidina kula xisaabtamaynin Maxamed Xaaji Hadalsame TV